أحكام تهوينك أخاس كوحا كمذا كذلك حكم ليد هذا ما ركتاني طاعة الزوج يعني هوين يدو أي ننك يدا أي أضعضو طاعة والنبي قالنا شيء عليه الصلاة والسلام نكون ناكتي سهدو ويردو اسكديدو واقوحو أبر يابو النبي قول يدو إلهي وعريسيه ملايكتنا إلا عنا ديسو هذا أمر لهابو النبي قول عليه الصلاة والسلام قف بني آدم وسيدي سائل أسجد وحن كو أمر لها هوين يدو ننك يدا إني أسجد أمر لهابو رسولك يلي لكن سجود إلهي مباسكال عدك إن لو سجود ما بنانو بني آدم نولنا إن لو سجود ما بنانو كو قبري كجرنا وركي سيس كدابا سجود إلهي باسكاله لأن السجود وعباده دول اسدق بالله دول اسدق halka jirkaaga ugu jeceshahay jabhadaada ilaahay u dhig ilaahay geerkii halka in loo dhigo uma qalmaan bal makhluuq uma qalmaan halka dhulka in loo dhigo marka hadii laakiin ay dhici lahayd buu nabigu leeyahay qof inuu qof u sujuudo aan amar ku bixin lahaa xaq ay ragu haweenka ku leeyihiin buu nabigu tusinayaa miisaanka iyo culayska uu leeyahay waxaan amri lahaa buu nabigu haweenaydu ninkeeda inay u sujuudo marka ilaahay tabaaraka wa taala qof walba xuquuq baa ilaahay siiyay raga inaguna xaq baad ku leedihiin oo xaqiina la inkiri maayo ونبينا صلى الله عليه وسلم نبا ويديو كيري دمر كيغو حقوقدا نغو ليه نبي الله بل نو شيغ مركابو النبي صلى الله عليه وسلم وحو كيري هداد cunto cuni waa inaad iyadana ay kula cuntaa hadaad dar xidhan waa inay kula xidhataa macna dar baad iibsatay maanta iyadana xaq waxay u yeelatay inaad wax u iibisaa ma aha inaad xaafadana aad tiraahdaa soor yar iyo wax yar karsada adiguna maqaaxid intoo tagtay hilib geel aad ka cuntaa ma cadaalad ma waa dulmi waxaad cunaysa reerkaagu ha kula cunaan buu nabigu leeyahay soo iibi hilib geelko waxaad tiraahdaa noo kari annakii carruurtay adigu aan wada cunay waxaad cuni baa nabigu yiri xaaskaadu waa inay kula cuntaa waxaad xidhatidna waa inaad iyadana u xidhaa dhar baad gadatay waa inaad iyadana maalinta wax u iibisaa oo tiraahdaa aniguba maanta garan yar baan gatee adiguna ma aragtaane hoo dhar yar ku gada intan yar allah ku barakeeye cadaalad haddaa laba xaas leedahayna iyo saddex xaas iyo afar xaas hadduu ilaahay ku siiyeyna cadaaladda waa inaad ilaalisaa kalgacaylka jacaylka taa adu ma haysid oo qalbigu meel buu u badanayaa laakiin xagga cadaaladda waa inaad waqtigaaga iyo wixii masaariifa reerka si cadaaladda dadka waa inaad u siisaa oo reer walba wasnigiisa iyo miisaankiisa iyo miqdaarka uu leeyahay masaariiftiisa waa in loo garaabayo dadna waa in la siiyaa ilaa islaanta lix ciyaala haysa iyo laba oo wada haysa isku kharash maaha laakiin waxa la diidan yahay inaad tanna aad bishan wax siisatana aanad waxba siinin taa lama ogole mid walba مصاريفته يدا كفلان يوبتك وإناد سيسا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله بإلى هيري كان أرزاقه دا واسعين أنكو بأساقنا ريره سهو واسعيه هو بلاريو كاكو كوبنا كو يرينين بإلى هيري انت أو كريا بإلى هيري حب حيو قفك بن آدم كوحو سكرين بإلى هيما بسارين بي وهداد وحيب سن وإنادو يبسا يدا هداد دلي بو نبي يقول هواك إلا إن لا يرئد بينا شريعة وين شيكته وجهك إن لقد دل معه لأن وجهك يدو وماشى بروح ذا لقى يكتب ويان إن وجهك لقد دل معه نبره وين وكم وقرينا دمرك إن لقد دفت معه إن لعاينا معها إن لعاينا لما أقوله عاين ابو نبي يقول حاسسكين صلى الله عليه وسلم بل آداب تدمرك الله رضق ما يو شريعة شيكته ننس صحابي أضيبا ويمدي رسولك إسقو إن أنتي سجعنت هيا مركب النبي قطوسي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أكبر إنك سعد بن الربيعها إن أنت يدي صد أدي لي بلاك بوكيني مركب وجهه كد لي علامات باكوتها الله مركب النبي أو عرض رسولكم عليه أنت وجهك ساس بدلي شريعتنا مسوا ودقينا كل بين بالنبي كوسو دقي سدوشيسا وعود أرض وجيو هكجرة تقولي سدو ودفتي إنها ودفتي تقولي markay dhaqaaqeen sii jeesteen ayaa soo degay waxiga ilaahay nabiga ku soo dajiyay markaa buu nabigu soo noqda way soo noqdeen markaa buu nabigu aradna shay wa arada allah shay'an akhar ba nabigu sibaan inakuna dabacsanayn ilaahayna si kalu damcay buu rasuulku yiri iga dhageystay buu nabigu aayadan ay u soo degtay ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع سومحن إلى آخر الآية آية داسا مركا النبي كسو دكتين لغو عدينيو قوامة إن الرقو أيليهين هقان كالرير كالرقا أيا إسكالي هقامنتا تلاد وحي كقو أي سوان ننكا
xaaska waa lala tashan karaa, ninku naag xaaskiisa talo uu weydiin karaa, laakiin go'aan qaadashada odayga ayaa iska leh. oo maxaa ilaahay yidhi qiwaamada raggu waxay ku heleen waa laba shay. marka hore isku ilaahay baa kala fadilayba, isku karti maaha, isku quwad maaha, isku dulqaad maaha, isku caqli maaha, ilaahay baa kala fadilay caza wajalla. nacam, dumarka ragga shiddada adayga u qaaliba, halka dumarkana dabacsanaantu ay qaalib u tahay. odayga iyo ragga kakanaan iyo adayg ayaa maaragtaan naxariis darro ayaad moodaa inay ragga ku jirto, halka hooyaduna ilaahay qaalib uu uga yeelay inay noqoto hooyo naxariis badan oo damqasho badan oo dhibrin badan. marka qawaamada raggu waxay ku heleen waa laba shay. marka hore waa abuurka, ilaahay baa kala fadilay bini aadanka. marka labaadna baa la yidhi maadaama iyaku ay nafaqaynayaan reerka, aqalkii iyakaa laga rabaa inay dhisaan oo dharkii ciyaalka u soo iibiyaan oo masaariifta ay bixiyaan. wixii reerkaa baahi uu lahaa intay raggu dabooli karayaan, raggaa looga fadhiyaa baahida inay daboolaan. marka qawaamada labadaa shayba raggu ku heleen. deedna ilaahay gabadhana uu ammaano, wuxuu yidhi gabadha saalixadda ee suuban ee ninkeedana adeecaysa ee wixii loo dhiibtana ilaalinaysa baa ilaahay yidhi. sifaadkaasaa dumarka lagu ammaanay. waa saalixad, way wanaagsan tahayoo ilaahaygay adeecdaa. waa qaanitato, ninkeygana way ka dambaysaayoo way ixtiraamtaayoo way u hoggaansan tahay. waa xaafidada, waxaa lagu yaqaanaa wixii ninkeedu u dhiibtay iyo reerkeedaba way ilaalisaayoo way ku fadhidaa. hadday reerka ceeb ay ka dhacdana ceebta way qarisaa, iyadu ma sheegto. haddii ninkeedu ammaano u dhiibtana ammaanada waa u ilaalisaa. markaasaa ilaahay yidhi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna baa ilaahay yidhi, ta aad uga baqdaan inay nagu noqoto maaragtaan tu madax taagaysa oo amar diidda inagu samaynaysa baa ilaahay yidhi. sidee loola dhaqmayaa marka hadday naagtaadu amar diidda kugu samayso? ma ul intoo la qaatoon baa lagu jijibinayaa? may halkaa looga bilaabi maayo. hadday naagtu amarkaagii ay qaadan weydo, amarka ilaahayna ay qaadan weydo, amar diiddana aad ka dareento, reerkana inaynan wadaynin aad aragto, waxaa ilaahay yidhi faciduuhunna baa ilaahay yidhi, waaniyo u nasteexeeya. dad hortiida loogu nasteexayni maayo. xataa marka loo nasteexaynaya islaanta ma ahayn ubadka dhexdeeda maaha, si gaara habeenkii adiga iyadu markaad isla keliyowdaan ee qolkiina aad isla degtaan ayaad si gaara ugu nasteexayn ood leedahay xaajiyo khayr allah ku siiya baad leedahay, sidaa iyo sidaa iyo sidaa aad u dhaqmayso reerkeenna ma wadayso. waa in ilaahay aan ka baqnaa. faciduuhunna baa ilaahay yidhi, waaniya. aadaabta islaamka loo sheegayaa, kala dambaynta lagu baraarujinayaa, alla ka cabsigaa lagu baraarujinayaa, diinta lagu tarbiyadaynayaa. naseexadaasaa in muddo a lagu wadayaa, muddo badan. haddii ay taa wax ku qaadan weyda baa ilaahay yidhi fahjuruhunna fi lmadaajici baa ilaahay yidhi, jiifka uga tega baa ilaahay yidhi. ha ag seexan macnaha. haddaad doonto aqalkan uga baxmar marka qaarkooda masaajidaada iska seexo oo aqalada jaarka iska tago, wixii nin dhex maro cidna ha u sheegin, laakiin afka uun yar buuro iska yar aamusun. aqalka markaad soo gashana iyada ha dirdiranina hablahaaga dirdiray ubadkaaga. soomaalidu markay cadhoodaan islaantii aqalka ka saaraan, halkana shareecaddu waxay leedahay may ninku waa inuu ka hijroodaa baa la leeyahay. gabdhaha cawradooda dibadda looma saaro, ceebtooda bannaanka looma saaro. aqalkay gabadhu in iska fadhiday ku asturan tahay. hadday dibadda u baxdo ceebtaadiba adigaa bannaanka u saaray ogow. laakiin adigaa la rabaa maadaama nin aad tahay oo islaantuna amar diidda ay kugu samaysay, naseexadii waanadii muddada aad ku wadana ay qaadan weyday, adigaa lagaa rabaa marka inaad aqalka uga yar tagto. gogosha ayaa laga dheeraanayaayo ciyaalkaa la iska dhex seexano, adaa iska khidmaysano, biyahaad iska soo dhaansano, dharkaad xidhanaysa adaa iskala soo baxayo oo hablahaagaad wax u diranaysaa, aabba quraaca ii keeno, aabba qadada ii keeno. islaantu markaa waxay odhanaysaa odaygii maxaa helay? aqalka ku noqonaya markaa cidhiidhi. hijradaa aad ka hijrootay haddii ay wax ku qaadan weydo waa tallaabadii labaad. ilaahay wuxuu yidhi wadribuhunna, markaabaa ilaahay yidhi garaaca haddaba. sidee loo garaaci marka haddana? mabud baa lagu garaaci. hangool sooma taqaanaan reebbay maxaa tira hangoolka? ya waa isaga lawaa hangool bay dumarka la dhacan, la dili maayo. tusbaxa yar iyo cimaamada yar iyo biyaha yaroo weysadoo lagu shaydhiyo iyo ya saasaa loo tarbiyadaynaya. leanna waa ubad, waa ilmo yaroo koray weeyaan islaamtu. sida ilmahaaga yar aad u ilaalinaysid baa la rabaa inaad iyadana u ilaalisid. maxaa yeelay 10 cunug ee aqalka kuu dhex joogta iyadaa kuu dhashay, iyadaa ku tacabtay. warshada laga soo saaray ubadkaasi waa caloosheeda ogow. marka warshadii haddaad iska jijibisa ka waran. yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin 3 baa ilaahay yidhi daalikum allaahu rabbukum yakhluqukum. ilaahay waa inagu abuurayaa meeshee caloosha hooyadiin dhexdeed, waa raximka dhexdiisa
fii 3 ظulumaatin baa ilaahay yidhi madheerta hoosteedu waa madow raximka dhexdiisu waa madow caloosha dhexdeeduna waa mugdi saddexdaa mugdi hoostood ayaa ilaahay qofka bini aadamka kusoo dhex sameeyey marka calooshaasi taada maaha taydana maahayna waa ta islaan haweenayda weeyaan maadaama haweenaydu ay warshad ilaahay uu ka yeelay ubadkaagaasi lagu soo dhex abuuray ayaduna naaska ku wada nuujisay tacabna iyada uu ka galay kugu soo tacabtay kursiintooda marka ha ku santaagin ha xumaynin u sabir u dulqaado u ducee haddaad garaacaysid sidaad u garaacaysidna usluubtaasi culummadu ay sheegaan baa dumarka lagu tarbiyadeeyaa in loo nasteexeeyo qur-aanka ay noo sheega usluubta in loo nasteexeeyo la wacdiyo hadday waanada wax ku qaadan weydo in aqalka laga yar dheeraado laga hijroodo oo faraashiga gogasha looga dheeraado marmarka qaarkoodna maaragtaan meelaha la iska tago laga warwareego hadday taa wax ku qaadan weydana waa in markaa la garaaco baa ilaahay yidhi daadna markaas ilaahay muxuu yidhi falaa tabquu calayhinna ha ku xadgudbina baa ilaahay yidhi xadgudub la dooni maayo dumarka in xaqooga lagu xadgudbo xuquuq bay leeyihiin marka saalixaad xuquuqdiinna ilaahay baa sheegay bal meesha shareecadda islaamku ayna dhigtay eega sida laynii tarbiyadaynayo haddii aad dembi aad samaysaan oo ragga madaxtaag aad ku samaysaan usluubta raggu ay niila dhaqmi lahaayeen ilaahay baa caddeeyo sheegay ilaahay siduu ilaahay nii jecel yahay eeg ilaahay uu xaqiina u ilaaliyey suuradan baa layniigu magac daray suurat an-nisaa anagu quraanka kuma hayna suuratu rijaal laakiin suuratu an-nisaa quraanka waa lagu hayaa